kulanti wacan saaxiibayaal meel baa joogtaan magacayga waa khaliiji weli waxaa ku kada joodnaa cashiradani baro afka jarmalka waan ugu talagalnay dadka bilowga ah waxaa maanta soo qaadanaynaa cashirka 17aad oo aan ku eegi doono dialoog ama wada sheekaysi haddii aad xiisanaysid daawasho wacan wada sheekaysigeena maanta wuxuu ku saabsan yahay saaxiibayaal job suuqe ama arbeit suuqe in aad shaqo raadisid shaqo ayaa raadinaysaa qof ayaa ka hor imaanaya qofkaas ayaa weydiinaysaa inuu shaqo hayo waxaa u sheegaysaa inaad shaqo raadinaysid iyo waxyaabo kaleetoo la mid ah waa fiirinaynaa conversationka ama wada sheekaysiga qaabka uu dhacayo waxaa usoo kala qaadanaynaa a iyo b inay sheekaysanaan ama cali iyo axmed inay wada sheekaysanaan marka ugu horeyso a ayaa soo boodaya oo wuxuu leeyahay hi also hi caadiga ah ich wollte dich was fragen waxaa rabaa in aan wax ku weydiiyo ich wollte dich was fragen waxaa rabaa inaan wax ku weydiiyo meeshaan ich will dich waa dhihi kartaa oo waxaa rabaa waa dhihi kartaa laakiin waxaa hoflish ah ama ka xushmad fiican markii aad dhehaysid ich wollte dich was fragen ich wollte dich was fragen waxaa rabaa inaan wax ku weydiiyo wolltena ka imaada meeshaan oo a ayaa hadlaya b ayaa soo jawaabay wuxuu leeyahay wasdan maxaa rabtaa inaad weydiisid a ayaa marka la hadlaya wuxuu leeyahay ich bin gerade auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle waxaa la meesha goobta laga shaqeeya ayaa lahaa wuxuu leeyahay ich bin gerade auf der Suche aniga hadeertaan waxaa raadinayaa nach einer neuen Arbeitsstelle meel shaqo oo cusub ayaa raadinayaa und ich dachte mir waxaan ku fikirayay dachte denkna ka imaaday oo bertertum ah waxa aan ku fikirayay vielleicht weißt du was in adiga aa wax garanaysid ama aa garanaysid meesha wax laga yaabo vielleicht laga yaabo yani macnaha ich bin gerade auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle waxa aan hadeerta raadinayaa goob cusub oo shaqo ah und ich dachte mir waxaan ku fikirayay vielleicht weißt du was laga yaabo in adiga wax aa garanaysid b ayaa kusoo laabanaya nein maya leider nicht مع الأسف waa ka xumahay ama nasiib daro was ist denn mit deiner alten Stelle maxaa ku dhacay was ist denn maxaa ku dhacay mit deiner alten Stelle goobtaadii hore aad ka shaqaynaysay maxaa ku dhacay Stelle waa goobta alten waxaa wixii hore duqda ahaa macnaha taadii hore maxaa ku dhacay b ayaa markale soo booday wuxuu leeyahay da wurde leider einige Mitarbeiter entlassen xagga nasiib daro waxaa laga soo buriyey Mitarbeiter shaqaalaha laga soo buriyey Mitarbeiter waxaa la shaqaalaha shirkadda ku jira la oo meesha ka shaqeeya haddii aad shaqaysid Mitarbeiter baa tahay shaqaale ayaa tahay wuxuu leeyahay marka da wurden leider einige Mitarbeiter entlassen shaqaalaha ayaa laga soo buriyey xagga b ayaa soo laabtay wuxuu leeyahay entlassen waa laga buriyey fiisodan sabab maxay tahay fiisodan sabab maxay tahay a ayaa soo booday weil das Geschäft wegen Corona nicht gut läuft maadaama dukaanka ama shirkadda koronaha dartiisa aysan si fiican u socon good laufen waxaa la markii wax si fiican u socdaan nicht good laufen waxaa la markii wax si fiican u socdaan marka nicht good läuft maadaama aysan si fiican u socon also hat man die Mitarbeiter die noch nicht so lang im Betrieb waren entlassen sidaa darteed marka nimankii shaqaalaha kuwaasoo noch nicht so lang im Betrieb waren kuwaasoo muddo badan aanan joogin Betrieb waska shirkadda entlassen shaqaalihii aanan muddo badan joogin shirkadda ayaa la soo diray macnaha guud waxay tahay maadaama koronaha dartiisa aysan wax badan soconin dadkii oo muddada badan aanan joogin shirkadda ayaa la buriyey macnaha b ayaa soo boodaya wuxuu leeyahay aha verstehe waa dhihi kartaa verstehe ish waa dhihi kartaa ish verstehe waa dhihi kartaa adiga hadba dooq iskale laakiin meesha man ishta waxaa ku dareemaysaa waxay tahay eeda meesha u dambeysa waa soo baranay qaabka ay webabka barnaamijyada u kala qaadanayaan in welchem Bereich suchst du denn in welchem Bereich suchst du denn qaybtee ayaa raadinaysaa a ayaa soo bood wuxuu leeyahay ich würde gerne weiter im Bereich Lager arbeiten
waxaa jeclaan lahaa buu leeyahay inaan ka shaqeeyo qaybta laagaha ayaa jeclaan lahaa inaan ka shaqeeyo buu leeyahay. In den letzten Jahren habe ich mich als Lagerhelfer als Lagerhelferin gearbeitet. Lagerhelfer waa markii aan nin tahay, Lagerhelferin markii aan ku jirtana waa markii naag aad tahay. Wuxuu ku leeyahay marka sanadihii u dambeeyey habe ich mich als Lagerhelfer, dadka laagaha caawiya oo nin ah ama naag ah ayaan kusoo shaqeeyay ayuu leeyahay macnaha. In den letzten Jahren habe ich mich als Lagerhelfer gearbeitet ama als Lagerhelferin gearbeitet. Waxaan sanadihii u dambeeyey kusoo shaqeeyay laaga caawiye ahaan ayaan kusoo shaqeeyay ayuu leeyahay. B ayaa soo booday wuxuu leeyahay möchtest du Vollzeit arbeiten? Ma jeclaan lahayd in aad Vollzeit shaqaysid? Jarmalka waxaa laga shaqeeyaa Vollzeit iyo Teilzeit iyo Minijob. Vollzeit marka waa 8 saacadood inaad maalba shaqaysid. Ma jeclaan lahayd buu yidhi. A ayaa soo booday wuxuu yidhi nein, maya, Vollzeit kann ich leider nicht arbeiten. Vollzeit waa ka xumahay ma shaqayn karo. Weil ich 3 Kinder habe, maadaama aniga 3 cunug haysto. Vollzeit ma shaqayn karo ayuu leeyahay ninkan. Aber Teilzeit wäre super. Teilzeit ayaa igu fiicnaan lahayd. Dann kann ich vormittags arbeiten. Waxaa shaqayn karaa wuu ku leeyahay gelinka hore, also gelinka hore ilaa iyo 12 duurnimo. Und mich nachmittags die Familie kümmern. Nachmittagna oo duurka wixii ka dambeeyana familkeyga ayaa kümmern waxaa lahaa marka wax ka taxadiraysa ayaa lahaa familkeyga ayaan ka taxadiri lahaa. Marka maadaama ninkan oo 3 cunug haysto wuxuu rabaa inuu gelinka hore shaqeeyo, gelinka dambena ilmihiisa ama familkiisa oo ka taxadiro. Sheekada way socota saaxiibayaal oo wuxuu sii weydiinaya marka hast du sonst noch Einschränkungen? Einschränkungen waxaa la dhahaa in shaqadaada aa wax kusoo koobayso. Tusaale ahaan dadka markay shaqada raadinayaan qaar waxay rabaan shaqo waxay raadiyaan oo ay 12 euro ka kacayso, oo haddii 12 euro ay ka yartahay ma rabaan. Qaar waxay rabaan shaqo u dhow, hadday shaqada ka dheer tahay oo kale ma qaadanayaan, iyo waxyaabo kale tado lamid ah. Marka wuxuu leeyahay marka waxyaabo adiga aa kusoo xiriiraysid shaqada ma jiraan. Wuxuu ayaa soo booday wuxuu yidhi ich habe leider kein Auto, ani waxaa dirtaan gaari mooto, daher wäre es gut, way wanaagsanaan lahayd wenn ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Arbeit fahren konnte. Way wacnaan lahayd buu ku leeyahay haddii öffentliche Verkehrsmittel waxaa lahaa basaska ama treenada magaalada ka shaqeeya lahaa, haddii aan shaqada ku aadi lahaa way wacnaan lahayd ayuu leeyahay. Ansonsten ist eigentlich alles gut, laakiin caadi ahaanna wax inta kaleetood kale waa okay. Das Geld ist mir nicht so wichtig. Aniga lacagta wax muhiim ah iyo malahan. Das Geld lacagta ist mir nicht so wichtig. Wichtig waa muhiimka. Lacagta wax muhiim ima ahan ayuu leeyahay. Ich hoffe natürlich auf nette Kollegen. Waxa arjinaya shaqaale fiican, nette Kollegen dadka kula shaqeynaya Allah, dadka ila shaqeynaya oo fiican ayaa rajinaya. Natürlich waxa waaye dabcan dad fiican ila shaqeynaya rajinaya, aber das zeigt sich ja erst später. Taas laakiin waxa ay istusaysaa kadib wenn man dort arbeitet. Halkaas markii laga shaqeeyo kadib ayay taas soo baxaysaa oo waxaa deetaan la arki kara maahan ayuu leeyahay. B ayaa soo boodaya wuxuu leeyahay ich habe da eine Idee, hal ra'yi ayaa hayaa. Eine Bekannte, also Bekannte waxaa la saaxiibkaaga ama qof aa istaqaanin. Eine Bekannte von mir, qof aa isnaqaano, arbeitet in einer großen Firma. Shirkad weyn ayuu u shaqeeyaa. Und hat erst vor kurzem gesagt, wax yar ka hor ayuu i dhahay, dass sie Mitarbeiter suchen in ay shaqaale raadinayaan. Ayaa soo booday wuxuu yidhi oh das wäre super, taasi ayaa waxay ahaaleed wax aad u wacan. Konntest du ihn mal fragen, ma weydii kartaa ob ich mich vorstellen kann? Vorstellen waxaa la markii aad qofka isku soo bandhigaysid magacii waxaa la Cali, waxaa ku noolahay meel hebel iyo waxyaabahaas oo kaleeto kala mid ah. Ob ich mich vorstellen kann, in aan aniga asiga isku sharaxi karo ama isku soo bandhigi karo. B ayaa soo booday wuxuu leeyahay das mache ich, waan sameynayaa. Schick mir deine Bewerbung per Mail. Waxa is dirtaa uu ku leeyahay Bewerbungkaaga mail ahaan igu soo dir, email ahaan igu soo dir ayuu ku leeyahay. Then gebe ich sie weiter, anaana u sii gudbinaa Bewerbungka. Waxa waa mar walbo Lebenslauf iyo qoraalka Bewerbungka labadaba waa ka heleysiin kanaalkayga qaybta beschreibung hoos ayaa idinkugu soo qoraya. meesha baa ka daawan kartaan haddii u baahan tahay sida loo qoro Bewerbungka ama Lebenslaufka, qaybta hoos ee beschreibungka ayaa ka arki kartaan. Marka wuxuu leeyahay ninkan iisoo dir ayuu ku leeyahay Bewerbungkaaga email ahaan ayaga ayaa usii gudbinaa uu ku leeyahay. Then gebe ich sie weiter, ayaga ayaan
usii gudbinaya ayaa soo booday gaana waa sameynaya macnaha gaana marka qofka wixii aad ku raacaysid baa leedahay marka gaana waa sameynaya qofka marka intaasoo dhan ku sameey marka waa ina u mahad celisaa marka oo wuxuu leeyahay ich danke dir 1000 mal 1000 jeer ayaan ku mahad celinayaa be ayaa soo booday kein problem wax dhib ay malahan bis bald see you later ama kulanti dambe xiise leh bis bald kulanti dambe xiise leh inta ay maanta idin wadaagay saaxiibayaal ku cishta videogan haddii aad wax qalad ku aragtay ama aad su'aal qabtid marnaba kala bashkina ila soo xiriirtid haddii video macna ku keen like sar inta kulanka xiis badan kulmi doonaan waqliij ah fi amaan allah